salaamullaahi calaykum kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka Soomaali News 724 qodobada wararkan ku weyna waxaa ka mid ah maxay tahay sababta Axmed Madoobe oo shuruud ugu xiray shirkii Muqdisho waa kuwee xildhibaanada aan dhicin ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya Siciid Deni oo sheegay inuusan dalka wax iska bedelin 4 sano ee la soo dhaafay Muuse Suudi oo sheegay farmaajo inuu wado shir ay ka maqan yihiin beesha Hawiye James Iswan oo sheegay in qaramada midoobe ay shir u qaban doonto Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo dheeraad ayaan diyaynaa ku soo dhawaada warkeena Soomaali News 724 fadlan haddii aad ku cusub tahay Soomaali News 724 subscribe saar share si aad xog dheeraad u hesho hagaag shirkii la filayay inuu xalay Muqdisho uga furmo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa baaqday kadib shuruud lama filaan ah oo ka timid madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dalbaday in ciidamada dawladda federaalka laga soo saaro gobolka Gedo ee Jubbaland taas oo noqotay arrin lama filaan ah sababtoo ah waxaa la rumaysnay in arrimaha laga heshiinaya ay yihiin kuwa doorashada ku saleysan sidoo kale Axmed Madoobe ayaa markii lagu casuumay shirka Muqdisho wax shuruud ah ku xirin imaatinkiisa haddaba Axmed Madoobe muxuu shuruudan ula sugay imaatinka Muqdisho ila wareeda lagu kalsoon yahay ayaa Soomaali News u sheegay in sababta Axmed Madoobe dalabkan ugu soo beegay imaatinka Muqdisho ay tahay inuu ka faa'iideysanayo beesha caalamka oo kaalin weyn ku leh shirka Muqdisho muddo 20 sano ah ayaa laga joogaa heshiiskii lagu dhisay hay'adaha dawladda Soomaaliya kadib burburkii dawladdii hore ee Maxamed Siyaad Bare oo hogaamiyaha ka ahaa taasi oo dhacday 1991 heshiiska dhacay magaalada Carta ee dalka Jabuuti ayaa lagu dhisay baarlamaankii ugu horeeyay kaasoo 4 sanaba mar la bedelo inkastoo dhowr jeer ay isbedbedeshay tirada kuraasta baarlamaanka haddana waxaa jira xildhibaano tan iyo Carte aan marnaba ka bixin baarlamaanka oo lagu dhiso nidaamka 4.5 ee loo yaqaano beelaha Soomaaliya ma sahlana inaad ugu yaraan 4 xilli aad ku soo laabato kursigaaga baarlamaanka Soomaaliya nidaamka beelaha ee 4.5 20 sano ee la soo dhaafay ku dhawaad 60 xildhibaan haddaysan ka badnayn ayaa xilli kasta baarlamaanka ku soo laabtay iyaga oo dib loo soo xula ama loo soo doorta baarlamaankii hore waxaa xuli jiray suldaanka ama ogaaska beesh laakiin kan hadda jira waxaa doorta erga ka kooban 51 xubnood madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa khudbad u jeediyay xildhibaanada aqalka sare wuxuuna ka hadlay arrimo kala duwan oo taabanaya siyaasadda dalka Siciid Deni wuxuu sheegay in loo baahan yahay isbedel lab ah inuu ka dhaco dalka sidoo kalena siyaasiyiinta iskhilaafsan aysan god mugdi ah la gelin qarannimada Soomaaliya madaxweynaha wuxuu sheegay in arrimaha xasaasiga ah loo dhigo gogol intaan ka ballaaran waxay ahayd markii ugu horeysay ee Muqdisho u yimaado tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni imaatinkiisa wuxuu sheegay inuusan isbedel ku arkin magaalada Muqdisho 4 sano ee la soo dhaafay 4 sano ee la soo dhaafay Muqdisho wax isbedel ah kama dhicin waana indheeyay intaan wadada socday wax ku soo kordhay dalka ma jiraan wali sidii ayuu u burbursan yahay bulshadu sidii ayay u cabsanaysaa ayuu yiri madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlay mowqifka uu ka aaminsan yahay kulanka la filayo inuu dhawaan dhex maro madaxda dawladda dhexe iyo madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland Muuse Suudi wuxuu dareensan yahay kulanka loo balansan yahay inuu yahay kulan ay ka maqan yihiin beelaha Hawiye wuxuuna sidoo kale carabka ku dhiftay in madaxweyne Farmaajo uusan dalkan wax wanaag ah ka rabin waxaan aragnaa heshiis aysan qayb ka ahayn beesha Hawiye inuu wado Farmaajo wadankana wanaag lama rabo waa uu kaligiis cidna kuma eedeyna ayuu yiri Muuse Suudi sidoo kale Senator Muuse Suudi Yalaxow oo hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu codsaday in aysan doorashada waqtigeeda dhaafin oo si wada jir ah loogu kaco wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya James Iswan ayaa shaaca ka qaaday in qaramada midoobe ay dhawaan qabanayso shir ku saabsan arrimaha Soomaaliya bahda qaramada midoobe ee ku sugan Soomaaliya waxay qabanaysaa wada hadal qadka internetka ah oo si toos ah looga soo tabin doono baraha bulshada qaybaheeda kala duwan kaasi oo dhici doono 6 September sanadkan aan ku jirno 2020
qaramada midoobay ayaa sheegtay in shirkan dadweynaha Soomaaliya lagu weydiin doono su'aalo kuwaasi oo waxtar u leh dalka Soomaaliya jawaabuhuna waxay gacan ka geysan doonaan in la wargeliyo arrimaha mudnaanta leh ee adduunka hadda iyo mustaqbalka wadahadalkani waa mid si gaar ah waqtigiisa ku yimid waana mid haboon iyadoo dowladda federaalka iyo bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya ay qeexayaan arrimaha horumarinta u leh dowladda Soomaaliya daawadayaal halka aad warkaasi kala socoteen waa Somali News 724 inta aan warkan lacayn hawada aan ku kulmi doono sidaas iyo nabad gelyo